kusoo dhawaada mid kale oo ka mid ah barnaamijyada aan u bixinay xusuus reeb ama xasuus reeb oo had iyo jeer aanu ku wareysano dad ay noola muuqato inay mudan yihiin waayihii la soo maray iyo taariikhdii la soo dhaafay in ay waxay nooga sheegaan oo ama ah dad ahaan ku gaadhay ama waaya ahaan goobjoog ka ahaa wax badan oo ka dhacay arladan Soomaalidu ay degto 60kii 50kii ama 40kii sano ee ugu dambeeyay barnaamijkan nasiib wanaag waxaanu helay nin aanan islahayn kullayba Hargeysa ka helaysa hase yeeshee aan ka helay waxa weeye General Maxamed Nuur Galaal oo aan filayo in badan oo aniga da'deeda iyo wixii kullayba ka waaweeyay ay si fiican ama u maqleen ama u garanayaan General Maxamed Nuur Galaal wuxuu ku dhashay Ceelbuur yaraantiisii wuxuu ku barbaaray magaalada Muqdisho dugsiga hoose dhexe halkaas uu ku bartay 1953 ilaa 57 waxa uu galay dugsi loo oran jiray military boarding school oo wax lagu baran jiray dabeedna laba alifle bilaysa ayaa loo qaatay oo saldhig ku yaala magaalada Muqdisho inuu madax ka noqdo 1959 koonfurtu ama qolada iminka Soomaaliya la yiraahdo may lahayn military bilayskii joogay ayaa laba loo qaybiyay qaybna military-ga laga dhigay qaybna bilays jananka ka sheekayn doonee xaggii military-ga isaga qoladii loo qaybsay ayuu ka mid noqday saddex alifle military ayuu markaa noqday dabeedna 1961 bishii December sida in badan baan hore uga sheekaynay ma aad ogtiin inqilaab ayaa la isku dayay waqooyiga ama qaybtii Ingiriisku ka talinayay ee ku biirtay qaybtii Talyaanigu uu ka talinayay jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa dusha ka ilaalinaysay iyagu markaa ka tirsanaa inqilaabkaas markii uu fashilmay wuxuu ka mid ahaa saraakiishii ugu horeeyay ee loo soo bedelay magaalada Hargeysa 1962 ayuu yimi Galaal wuxuu ka sheekayn doonaa wixii ka qabsaday meesha siwaayihii jiray iyo sidii xaaladdu noqotay waxa kale oo daray 1964 dagaalka aad maqasheen ama intiina yaryar laga yaabo inaydan warhayn oo dhex maray Ethiopia iyo Somali Republic jamhuuriyaddii Soomaaliyeed dalkii loo oran jiray dagaalka 64 iyo xabashada lala galayna wuxuu ahaa ninkii halkan ka hogaaminayay Hargeysa oo markaa saraakiishii ka mid ahaa ugu roonroonayd markaa 1964 waxa loo celiyay Muqdisho taliska Muqdisho ayuu la shaqeeyay markaa 1964 dabayaaqadiisina General Maxamed Nuur Galaal waxa loo diray Ruushka kamid ahaa saraakiishii ugu horeysay halka loo diray muddo 5 sanadood ayuu ku jiray mid kamid ah jaamacadaha ugu sareysa ee ay leeyihiin military-ga wadanka Ruushka markuu soo noqday 1969 waxa la geeyay xafiiska military intelligence ama xafiiska sirdoonka military-ga ama wardoonka military-ga muddo markuu joogay Baydhabo loo bedelay muddo gaaban dabeedna inqilaab baa dhacay 1969 markii afgambigu uu ka dhacay ama military-gu ay la wareegeen xilkii Soomaaliya waxa uu ka mid noqday raggii saraakiisha ahaa ee madaxda noqday gaashaanlu markiiba noqday muddo kadibna waxa loo dhiibay qaybta dhexe ee ciidamada ee Beledweyne halkaas oo ilaa sarkaal sare ama corneyl uu ku gaadhay xisbigii hantiwada kacaanka Soomaaliyeed 1976 la dhisay waxa uu ka mid noqday qolihii dhexe xisbiga wasiirka hawlaha guud ayuu mar noqday kadibna jalan buu noqday dagaalkii faraha laga gubtay ee 1977 dhex maray Soomaaliya iyo Ethiopia inkastoo Soomaalida anagaygan ku dhaydo kamid ah raggii beenta ku heshiiyay ee jabhadda noqday haddana jananku
isagoo aan dareyskiisa xidhnayn laakiin ciidan adag wata wuxuu ka mid ahaa raggii galay Ethiopia weliba anigu waxaan ogahay inuu ahaa ninkii ugu horreeyay gacanta ku dhigay magaalada la yiraahdo Diridhaba ee aaga xagga galbeed ee ciidamada gacanta ku hayay wax badan buu ka sheekeyn doonaa aakhirkii ciidankiisii ama ciidankii Soomaalidu lahayd burbur baa ku dhacay dagaalla sokeeyaa ka dambeeyay Soomaaliya waxa weeyaan weli meynaan odhan Allah u naxariisto dadkii qaar way nool yihiin dawladdii dhexe sidaas ay ku burburtay waxaana burburiyay Jalaal Maxamed Nuur Galaal ciidankiisa lafaantiisa ama reer ha noqdeen ama wax kasta ha noqdeen waxaasan ka sheekeyn doonaa haddii uu eebeedmo Jalaal Maxamed Nuur Galaal ku soo dhawo warta barnaamijkan xusuus reeb kolba odayar iyo janan yar iyo cid baan meelaha ka soo helaa marka aad baan raalli uga ahay inaan ka helo magaalada Hargeysa adigoo socota xagga dambeenu kaga sheekay doonaa socotadaada iyo sidaad ku timidiyay waxa laakiin waxaan jeclaan lahaa marka hore noloshaada yar ee gaaban ee kooban oo filayo inay inta aad uga badan tahay maxaad ka tagay meelahan isleeyahay bal hadda yaraantaadii kaga soo bilowo iyo halkaad ku kortay iyo sidaad ku kortay waya bismillaahir rahmaanir rahiim waa mahadsantahay ducaale barnaamijyadaada waa dhegeysan jiray run iyo beenba isugu jireen faan badanuna waa ku jira waxaan maqlay guushuna waxay leedahay kun oday gooldaraduna waa agoon marka way ka muuqata meeshaas wixii dhibaataa nin sheeganaya oo dhahaya meeshaas anaa ku jabay weliga kaa maqal nin oo faanayaan maqli jiray anyway anagu hadee sidaan markii hore yar ku xusay anagu waxaan ku dhashay miyiga magaalada Ceelbuur waad 10 sano ku gaaray 10 jir anigoo ah ayaan ka soo tagay magaalada Ceelbuur baan imid hooyaday oo joogtay ayaan ugu imid markaan imid waxaan u maleynayaa inay ahayd 49kii meelahaas inay ahayd Ingiriis baa weli joogay waan xusuustaa gaala Ingiriis waan arkay 1950 talyaanigii baa yimid iskuulada hadii furfuray halkaasaan anigu ku biiray iskuulkii halkaas Ceelbuur oo ka furay Muqdisho waad ma Ceelbuur baan ka bilaabay waa alfabeetka iyo waxyaalo noocaas ah niman odayaal oo fashiistadii la shaqeysay jiray iyo aniga isku galaas noqonay marka ayagoo aftalyaani jajaba waa yaqiineen anigu soo laakiin markii waa ka gudbay markaas loo soo reebay la geeyay oo iskoolkii galaaskii labaad oo markaas ka furan yahay galaaskaas labaadaan galay markaan dhameeyay oo ay tahay 52 ayaa xamar la ii diray waxaan galay dugsigaas la dhihi jiray College Militare Generale Ferrara la dhihi jiray waa generaalkii ciidanka militariga xukumay yani waa boarding school oo maaragtay oo arda la gelinayo oo ah qaab militarina ah hadee tacliintii kale oo caadiga ahaydna loo dhigayo markaas ma askari ma bahada askari ah maxaa lagu geeyay iskuulkaas waxa gali jiray ilmaha madaxdii Soomaalida ee weegaas noolayd ee militariga ku jirtay iyo kuwii waaridkood ku dhinteen oo la xaqiijiyo ayaa gali jiray anigu kuwaas dambaan ahaa aniga aabay wuxuu ku dhintay Ceelwaaq second world war markuu bilowday dagaalkii labaadeed markuu bilowday waad halkaas uu ku dhintay adiga marka codsigaas aan qortay wala nin waxaan helay cid saaxiib la ahaayo marshaal warsama major la dhihi jiray warsama major wuxuu ahaa warsangeligan maaragtay waqooyi ayuu ahaa saasaan ku galay meeshaas imtixaan la iska qaaday imtixaankii aad iyo aad ugu fiicnaa talyaaniga markaas jajab bilaayo ahaa iskuulkaas aan galay 53 ilaa 57 halkaasaan ku jiray 57 intaan iskuulka ku jiray militariga la baabaash
booliis baa nala wareegay aniga maalintii u horreeyay qabrigii ugu horreeyay oo isla waa kugu dimay kaasoo ahaa ma aanan rabin booliiska militarigeennaan rabnay oo aad iyo aad waxna noo barayay markaa koonfurtu military bay lahayd ha 4 batalyan oo qoray talyaanigu waay 4 batalyan ayuu qoray waay 3 oo infantry oo joogta iyo mid batalyankii iskuulaadka la dhigi jiray waay oo tababarka iyo waxyaalahaas ay ka shaqeey jiray batalyankaas iskuulaadkan ka tirsanaa waay oo kolleejadu ka tirsanay hadda 70 waxa kale police bay ahaayeen waxa kale police bay ahaayeen marka markii aan dhameeyay kolleejadii galaaskii 8aad markaan dhameeyay ayaa booliskii anigu waxaan rabnay inaan markaas secondary iska galno waa noo diideen police baa la qoray police baa nala qoray iskoola booliisiga nala ku shubay anagoo dhowr iyo 10 ah saacin baa laga dhigay alifle 9 bilood aan halkaas ku soo qaatay saacin baa laga dhigay 2 alifle saldhig booliis baan saldhigaas keebo haad qabtay waxa la dhihi jiray Beit Ras oo wuxuu ku yaalay meeshan hadda wasaaradan cadaaladda iyo high court-ka xeebta u dhawaa ayaan halkaas ayuu ahaa Somalizationkii markii booliiska gobolka Banaadir la Somalizationka lagu sameeyay la doonayay Soomaalida loo dhiibo markaas anigu Somalizationkaas aan galay taneti talyaani ah ee meeshaas ka bedelay ana 2 alif la ayagana waa la diray okay markaas hatta afweyne iyo markaas ay soo galeen oo commandant division Banaadir oo noqday waxyaalaha waxa jiray taneensa booliisiga la ugu sareeyay Soomaalida marka darajada bahalkii Maxamed Abshir Daawudna waa ku xigay marka intaas waa markii militariga la sameeyay Soomaaliya waa ka hor oo idinko wada bilaysa anagu yaa madaxdiina waxaan Maxamed Abshir waxa ku xigay gaal talyaani ah madax ahaa gaal talyaani ah ayaa madax ahaa Arneera la dhahay Alfred Arneer oo gaashaan la dhaxa markii xorriyadii soo dhawaatay ayaa asagina la bedelay Abshir baa loo dhiibay Maxamed Abshir baa loo dhiibay marka darajooyinka Soomaalidu haysato yaa ugu sareeyay gaashaan la saray ugu sareeyay oo xidiga gaariyeen Soomaalidu mise maxay yar bay lahaayeen ma xidiga caadi ah lahaayeen konton iyo 4 markii laga soo bilaabo xidiga caadi ah la qaadanay markaas ayaa la yiri waa in ciidan la sameeyaa military in la sameeyaa gaalkii talyaaniga meesha madaxda ka waa diiday 950 weey marka 950 dhamaadkii meelahaas hatta baarlamaanka waagaas jiray oo Aadan Cabdille oo ka ah gudoomiyaha way diideen laftoodu laakiin Cabdullaahi Ciise ku adkaystay oo ahaa Prime Minister dawladda daaqiliga ahay sax dekreeto marka soo saaray oo 12 Abriil 69 aakhirkeeda 12 Abriil 1969 oo marka loo dabaal dago in la sameeyay ciidanka militariga ee Soomaaliya exactly marka ciidankii militariga la asaasay wuxuu ka koobnaaday 1000 nin oo laga soo arooriyay booliska laga soo gooyay iyo 2000 oo kruudaha la qoray علي بوبا يا لديه شري علي بوبا يا لبه علي بوبا يا لبه marka kunkii mii hore ee bilayska ayaa 200 cusub loo qoray oo dhibooda oo la baray marka kunkaas hore oo booliska laga arguriyay waxay u badnaayeen ragii awal ciidankii militariga la baabaashay ka tirsanaa jiray saraakiil xigeen iyo waxyaalahaas ay ahaayeen waxa loo keenay madax looga saaray Daawud iyo Maxamed Siyaad oo booliis ah iyo Caynaasha iyo saddexdaas generaal saddexdaas atimid marka goorma iyagu korneyle ahaayeen Soomaa korneyle ahaayeen
markay kowdii April waxaan dhihi lahaa July ayaa generaalba u horeysay Daa'uud iyo Abshir wala korneel la ahaayeen laba korneel ahaayeen way Daa'uud marka nina wuxuu noqday taliyaha ciidanka militariga midna waxa laga dhigay taliyaha booliska laga dhigay way kuwa kale korneel ahaayeen maxamed siyaad barre iyo aynaansho iyo liiqliiqatay waxaas dhinaca kalena qorsheel iyo liiqliiqato iyo oo iyaguna korneel ah ayaa maxamed shirka hooseeyay halkaas ka bilaabatay waxa kale oo jiray Scots Regiment oo ayaguna kun nin camal ah oo halkan ka jiray waxaan ku weydiinayaa General Galaalow Police baad haydeen idinku wasaad military meedan ahayn wasaad British Somaliland dalkii loo oran jiray ee idinku soo biiray 1960 waxay lahaayeen military barma ka dagaalamo sidoo ka dagaalamay oo saraakiil leh oo military ma garanaysaa ciidan caadi ah oo ka soo baxay jaamacadaha adduunyada Sandhurst ay ka mid yihiin wasaad ولدي عانى لديه بليسك هذا استشهاد هيست ما لو ركر حديقات كنا نبض ما يهدي وحال ماشي لابد معمول باكري واي سنين لابد قلو إذا كنا تلان بالهيدا تلان ما إنجليز بها لا واحد يقول رضا لبعض ذي كلا قبصتي يو اسمه شمال لمن والله ولا شعلا وحش كدرسة كرال لبعض لقاها لكن لبعض ذي كلا قبصتي يسدي لا يصب عن ضعفي يهلك وحكح معدين كشكل حوي هرتا فيري talyaaniga xagga joogay Soomaalida uu dhisay 10 sano lahaa wuxuu dhisay waxa kamid ah booliskii iyo military ayuu dhisay markaas aan ku sheegay 54 markii laga soo bilaabo saraakiil ba xagga laga bilaabay oo Maxamed Abshir iyo Xuseen Kulmiye iyo Maxamed Siyaad Kaan iyo Daa'uud iyo taliba loo diray ma aqaan adigu hal sano iyo bar waxay muqto maqnaayeen waa soo noqdeen xidiglayaal bay noqdeen 54 way intaas way korayeen kaligood ma korayne dadka official ka oo dhan korayay ninkanuna wuxuu lahaa 10 sano oo mandate ah oo waliba la dul taagan yahay while dhinacan Ingiriiska waa haystay Soomaalida baa ku qasabto ma weeso inuu iska sii joogo inuu iska sii joogo laakiin Soomaalida ku kacday goormay bilaabeen marka inay darajo bixiyaan waxay bilaabeen mar dambe bilaabeen ma qan 58 miya markay noqdeen Xasan Kayd iyo u horeeyay waa 58 marka hadda 58 ilaa xiddiglayaal markaa ka soo baxay jaamacad bahaniyo garanaysa ma yaqaan Masar ka yimid qarba Ingiriiska ka yimid kulli kama wada imaansan waarun marka hadda 2 sano gudahood wixii ay tagi kareen waxay ahayd ilaa iyo 2 xidigle garanaysa iska soo marka saasay ku dhacday inay nimankaasuna yar ahaayeen garaad ahaan kuwanuna ay garaad badan wateen oo rag ilaa 4 soo dalacay ahaay oo aan markaas laakiin aqoonta military qodobada ka sarreysay Soomaa markii definitely horta ogow iskuulaadka heerka maaragtay akademiyada loo yaqaan meelahaana ardada shibilka markay gasho 2 sano markay ku jirto ma ahan in cilmi weyn yaqaaniin noloshii waxa laga bixiyay shibilka ahayd nolol military lagu abuuray ilaa ay wuxuu noqday waxa loo diyaariyay Platoon commander Platoon soo garanaysa waa 30 nin fikrad guud waxa laga siiyay kambaniga Platoonku ka tirsan yahay inuu madax ka noqdo ayaa fikrad laga siiyay sida uu dhisan yahay iyo wuxuu yahay iyo aragti ka sii koraysa kasto oo ilaa iyo battalion-ka ninku waa yaqaan inuu 3 kambani iyo wax reinforce ay waxa inuu leeyahay laakiin cilmi kale weyn ma jiro meesha ma jiro marka yaan lagu qaldin 1900 iyo 61 bishii December saraakiishii yaryarada imkaad ka sheekeynaysa reeqooyga
waxaa loo keenay raggaa aada sheegaysay saajimada meesha loo keenay oo taliya ah raggaasaa loo keenay dabeedna waa cadoodeen mindhaha wax ku dhacayba inqilaab bay isku dayeen waa saa isku dayay inqilaabkaasi wuu fashilmay jacaylkii labadan dhinac ay isku hayeen 1960 oo ahaa in Soomaali la isu geeyo oo la xoreeyo oo inta hadhayna la isu keeno hadhow iyagu horseedaan darajooyinkii iyo sidii wax loo kala qaatay bay u ekayd inay waxoogaa wax ka xasuusataa waxaas inay goobjoog badan sarkaal badan weliba waxaan ka xusuustaa dhinaca militariga marka ka tago dhinacii dawladda aadan cabdillah madaxweyne loo doortay prime ministerkii waa soo haray halkan haddee waxaa joogay baarlamaan yarna waa jiray dowlad yaruna waa jirtay oo wasiir ah oo cigaal madax u yahay baarlamaankana waxaa madax u ahaa nin cabdullaahi maxamed khaalib lildhaha ayaan u malaynaya magacaasina cabdullaahi jaamac khaalib cabdullaahi jaamac cabdullaahi khaalib jaamac cabdullaahi khaalib miyaa waa kii weeye kaasi baarlamaankii ayaan dhawadoo dhintay uu dhintay qurux badan oo ahaa inaad diir qaban baa lagu jiray inaad diir qaban si ay u gartaan qolo marka cabdullaahi jaamac cabdullaahi khaalib halkan markii laga tagay xagga markii la tagay nimankii reer waqooyi waa kala beermeen wixii daarood ahaa halkaas isku shubeen wixii isaaq iyo samaroon iyo ahaana dhinacaan aadan cabdille iyo dhinacaan ay dhowr ka saareen qolo aadan cabdille iyo cabdullaahi ciise waxay rabeen cigaal inuu noqdo prime ministerka kuwan kalena waxay rabeen in cabdirashiid uu noqdo okay labadii qolo tactic ahaan waxay sameeyeen cabdirashiid iyo kooxdiisii waxay taabteen ninkii jaamac cabdullaahi khaalib iyo booskaagii baarlamaankan weyn oo laysku wada daray booskaagii qabso waa kugu taageeraynaa kuwii aadan cabdille iyo cigaal iyo markaas wada socda waxay ayaguna taabteen nin la dhihi jiray caddaan weyn oo ursangeli ahaa waxaa la yidhi baarlamaanka guddoomiyaha baarlamaanka kaa dhigaynaa qabso diyaaraan hou yiri kiina diyaar baan hou yiri qoladii daaroodka ahayd caddaan weyne inta u yeereen ayay wax awooti la yiraa mindi bay dhulkay u geliyeen ilaahay waxaan ka barin haddaad na khilaafto in beerka balaayo alla kaa tumaata shab dhulka loogu sii caddaan weyne gacmahu taag kii kale inta kor la maray oo hoos la maray ayaa laga qoostay hadde wuxuu ku soo baxay guddoomiyihii baarlamaanka hadda laba jago isaaq ma wada heli karin ma qabyaalad markaa jenaraal maxamed nuur kalaalo kaa qarin maayo qabyaaladay noqotay qabyaalad baa 60kiiba la bilaabay soo maahan wakaasa labadii dhinacba waa la bilaabay oo loo kala baxay reer hebel halkaas wax ka qalloodeen badle halkaas labada saas waxa igu sheekeeyay aadan cabdille iyo cigaal tabtaas nin walba igu sheegay labadaba wada sheekaystaa waa loo sheekaystaa hadda labadii waa dhinteen oo dhulka hoostiisa jira oo maqlaya allah u naxariistay ma masabidanayo marka sidaasay ku dhacday in dabeedna qoladani waxay tawdeen in waxba way maxaa loo reebayeen cigaal oo laba umadood isku biiray bay ahayn de waa saas hadda horta meeshii ka murgactay waa halkaas marka eedeeda yaa la saari karaa waa meesheeda adigu ka fakir marka maxaa dhacay waxa weeye cigaal waxay ka dhigeen wasiirka gaashaandhigga waxa weeye booska 7aad protocolka markii la sheegay booska 7aad buu galay waa prime minister waa dal la yimid daldan uu madaxweyne ka ahaa iyo wax walba ka ahaa dhibaataduna saas ay u dhacday marka saluugaasi markuu dhacay saluugaas waa dhacay saluugaas wax badan uu saameeyay
dadka wuxuu saameeyay siyaasiyiinta ahaa wuxuu saameeyay saraakiishan wuxuu ilaa iyo xad dadweynaha weli ma ayan dhiman qeyradii ahayd Soomaali weyn waa jirtay waa noolay aad iyo aad buu noolay sababihii inqilaabka militariga ay dhigeen sababtaas anigu inay connection la leedahay markaad baadhay raggii ku yimid raggii saraakiisha dabcan mar dambana dee ama taliyaad u noqotay ama raggaagii bay noqdeen waa saaxiibnay aad iyo aad waa saaxiibteen maxaa sabab u ahaa yiid ayagu waxay tawdeen maxay ku fashilmeen waay qorshaha ka xumaa markaas waxay yiraahdeen si beenana waxay damceen inay ku galiyaan oo waxay yiraahdeen dawladdii General Daoud baa la wareegay ciidanka la wareegay waa la qaata markii hore waxba uu hirgalay markaas la warada kuwii aynaansho iyo intii ka hoosay oday la dhihi jiray Asmaan Sankor iyo waa xiran yihiin shaki hadiiba radio Muqdisho la dhageystay wixii mase waa caadi dawlad balaa ma jirto markaas way markaa bahasho isku qarxday hadee dawladda halka waxay oo dhowr saacadood ay socotay inqilaabkaas waa dhintay saas oo ku dhacay markii adiga lagu soo bedelay ee kuugu horeysay Hargeysa timi soo markii kuugu horeysay aragtay ma ahayn markii ugu horeysay Hargeysa albuur baad u dhalatay Soomaaliya baad ka tagtay xamar baad ku barbaartay sarkaal baad soo noqotay adigoo xidigla ah ee Hargeysa timi maxaa kuugu dhib badnaa ee ka xasuusataa markaad dabcan Soomaali baad ku hadlaysaa dadku kaantana waa la isu wada eegay laakiin culture dhaqan Talyaani baad ka timi saas weey Ingiriisna waad u timi يا إنجليزية قارنا وكذيد بتو محافظ كنا شلعانتي أسكرتها ويا أسكرتي كلا دبعتني كلا قبض ما عندك حسوسته. هرت واحد كحسوسته دبعته وين هرت مركبا نهرت مد واحد نقطة بل حتى جاردجي أفكي قال أنا إنجليز بحكوا جارد سيشرتي قال أنا بحكوا جارد سيشرتي طلياني ورساوي حلا يا في صومالي كمر كاس الهندسي دكتورو دبوجس وكان لا واحد الرئيس واحد أضرب لحد أوها عيناش جنرال عيناش نك واحد كان نكاسوها تليه هل كانوا هاي سو ها أنتوا حاجة شوقي وماشان بو لقولي حراني لبدي يكون النين اللي تبري أصلا مدحوها مركا يا حقنا في رهاب كسوتشيري حقنا نقل رهاب كسوتشيري صوبها ها ساس ويه وات marka horiimahana waxa joogay salaad gabayr iyo Cabdullaahi Yuusuf iyo bahalka xawaha Samantar iyo kulli Maxamed Faarax iyo ayaa horiimaha 20 horiimood camal ay haayeen way ninkan ana madax u ahaa ko markuu halkaas joogay ayuu afkaan dejiyay oo ururada magacyada biirjeex iyo waxaan aad maqlaysay isaga baxshay isaga keenay aniga maalin anoo halkaas jooga ayaan xasankeed arkay asagoo laba xidiglaha meesha yimid oo koroneelka u tagay oo ay wada hadlayaan ninkaas waxa la yiri markii saas uma sii raacin waxa la yiri xasan baa la yiraahdaa oo wuxuu ka yimid Scouts Regiment markaas aba igu horeysay araggiisa wax yar aan saas u fiiriyay marka inqilaabkii fashilmay hadee anaguna waligayba ma rabin inaan military noqdo waligayba ma rabin waxaan rabay inaan lawyer noqdo jaamacada aadaa private ahaan iskoolkii dhigtay secondarygaan ka baxay markaan inqilaabka halkan laga sameeyay aduu waxgaa joogtay xamar baan joogaa kadib baa markaa lagu keenay markii inqilaabka fashilmay way marka halkeed madax ka noqotay markaa xafiiskii waxa la keenay xasan halkii xasakeed bad fadhisay iririnka la dhahayay adjutant marka عيناش كورنيل كان ماشي سووا طقنا عرقنا ور ماشي على كل حال أنا وأنا مركز
nin dhintay baan isu qaatay markii halka la isoo bedelayay quraan baa lagu soo akhriyay laa ilaaha illa allah waa nin dhintay sababta wax kale ma ahayn waxaan rabay anigu inaan mar walba jaamacad aado jaamacadkaas aan aaday Okay. oon dhameeyo afgarasho la-aantii kuugu horreysay iyo askartaada dhibaatadii idinkala qabsatay iyo labadii dhaqan inay wax yani isku duwad maxaa kuugu adkaa horta niho basaa u sheego dadku Soomaaliga ku wada hadlaya oo laakiin waxa la yiri intani xagga ka tabad nin walba in bay u yeeleen in aniga waxa la yiri waa gaal wacal ah askartii baa ku tidi ma magaalada reer magaalka way markaasa arrintaas waa baahday inaan wacal ahay oo gaal talyaaniga aan ahay markaasa maalin baan waxaan soo galay meel yaro waxaa jirtay cajib ah oo kafeega laga cabisay cajib ha cajibkii waa halka xafiiskii ku yaal biga soo jeeda way hadda wali ma noosha way loosha iyadoo magac kale leh asay magac kale leh intact subax baan soo galay odayaal baa fadhiya iyo niman dhulka xaggay ku sheekay markaas wacalkii baa soo galay wariga gaalkii soo galay wixii baa la yiri waa leegu waday nin baa marka wuxuu yiri wariyada ninku edeb buu leeyahay idinma hadlaye ma ka xashootaan oo ka aamustaan mid baa inta soo badow war miyaad gaalan edeb lahayn waliga aragta maxay gaalku ugu maleeyay sababku baa telefoon ka disado may xaqiiqa ka hadlaa sidaas aan hadlayay waad marka waxa kale oo ayana ahayd jirtay meeshan waxaa joogay gobernatoorka ahaa Jangeli kuwii xamar taarar waxay ku soo afuufan talyaani ku qoran meelay u dhaqaaqay ayaa la waayay markaas wariyaha militariga yaa af talyaani yaqaanaa leeyahay lagu yeedhay marka ayna kornaalka la hadleen kornaalka wuxuu yiri ereerinkaas si fiican u yaqaana markaas waxa la ay baxshay ereerinka iyo Italian file iyo ereerinka waa la lamaanay weegi laba gooraan imaanay markaas aan wixii kala la rureeyaa waxa kala rureeyaa mid oo secretary general ah meesha joogay iyo aniga iyo gabar karaan ahayd ayaa kala rogajina waxaas adoo 3 bilood aan guriga ka soo bixin kama soo bixin guriga xafiiska iyo miiska triangle kaas aan ku noqonay 3 bilood markii dambe dhibaato waana kala tagay markii dambe waa يعني waxa madaxii ii furay iyo aragtidii xaga militariga مثلا ciyaarsiiska oo kale la afka ciyaarsiiska qolaha roocan magaranaysa wareystay oo kamid ahaa askartii saajimada horta ugu hadiyo jeer ugu adag oo kuwa wax tababarka sameeya saas way waxay leeyihiin iyaguna af Talyaani bay ku hadli jireen kuwana Ingiriisi baa lagu hadli jiray marka mararka qaarkood Soomaaligii loo bedelay iyo isla garan waayay jireen waa Soomaali ugu dhibadnaa ma waxa u dhibadnaa firi kuwan reer xamarka cad ma aragta kuwa naga dibada kala qabsay waxba ma ahayn Soomaalidan iyo taaso dhib ma lahayn dhibaatadu waxay ka taagnayd qowmiyaadka kale oo ama jireerta leh ama reer halkan banaadiriga leh ama waxa noocaas maalin baa aniga anagoo cadet officers ayaa waxa nagu jiray mid kuwan cadcadka ah markaasuu markaasna Soomaaligu waa dadku ku cusub yahay dictoro dabci waxa la yiraahdaa dig buu tanay markii saas la yiri ayuu garan waayay dabcidii dabciyo garan waayay markaasuu yiri neefso iyaga neefso waa neefso yiri markaas la garan waayay waxa la sheegay sidii la taagay intuu orday oo salaad gabeero meel agteena jooga oo doctor ka ah u tago yiri nimankan aniga waa yasayaan aniga la ma maqlaayo oo
kii ordaya soo galay yaanyuur camal fariiso kii ordaya soo galay markaasuu arkay raggan callaqan warwaas markaasuu dabci isagiyaa yiri waa la dabcay waryaal maxaa ninkan hadalka wuxuuna ula hadlalay hadda muxuu ula hadlaa dig buu nayris cirka indhaha nooga taagan waraacadana dishay dabcidii neebso anaga waxay tahay maxaa waxa neebsan iriyo isku mid waayno isku mid lama marka markii la isku daray labada dhinac isu yimaadeen dabcan wadiga sheego maamulku qolana Talyaani bay wadatay qolana Ingiriis bay wadatay muddo 4 sano bay qaadatay in ilaa 64kii sida jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa markaa ku dhexdhexaadisay in wax la yiraahdo integration ama isdhexgal labadii maamul soo wasaarad waliba laga agaasimo guud bay lahayd mid Talyaani yaqaan iyo mid Ingiriis yaqaan militarigiini miyaan soo kala noqon maya idinku markiiba wad kala goosateen oo Soomaaliya baad soo baxday Soomaaliya baan kala baxnay dabcan saraakiishii sooqooyiga hay yaa u sareeyay markaad xasakeyd dawal la xidhay nimankii oo kuwa inqilaabka dhigay dhowr iyo 10kii sarkaal ugu sareeyay Ismaaciil Calaw oo karaan u maleynaya oo aan siyaaraysnaa oo xidiglaashii dambu ahaa sooqooyiga dambu ahaa kaas oo ugu aan siyaaraysnaa inta kale waxay saajimadii hore iyo xog maya waa Kongo iyo magaranaysa Xasan maya Xasan keed waa Xasankii kale Xasan Faarax Bataan Xasan Firataa la liijay oo ninkii inqilaabka diiday ahaa ma ogtay soo saas ma xusuusan inqilaabku diiday shiiqu joogay meesha deboogu joogo askarta lagu taabaro raggaas ka mid rag badan waaye ayay ahaayeen marka laakiin waxa ugu ansiyaanaysnaa oo laba xidigla ah Ismaaciil Abukar saasaan u maleynaya kulka la isku soo xooriyo qaybta hore iska horimaadka ugu horeeyay ku saabsanaa wax qaybsigii waxaad ii sheegtay in qabyaalad markiiba ay bahasha noqoto siyaasadda xubnaha 62kii dastuur baa loo codeeyay dastuurkii qoladii waqooyigu sida recordska ku taaleen ku akhrinay 80% way diideen maxaa ugu wacnaabay kulata kulay waxbay tabanayeen maaf Soomaali maaf Talyaani buu ku qoraa maya waa la bedelay isaga dhan bay diidanayeen isaga dhan ayay diidanayeen maana Talyaani kaliya ma ahayn markiiba waa la bedelay baalka marka dastuurka waa la diiday anigu mooga percentage-ka lagu diiday tabashadiina darajadii oo laga dhigay gobol yar oo la iska lahaa xaggaas waxay ahayd 6 gobol halkan hal gobol baa 7 gobol baa 1960kii isu tagay markaad eegto siyaasaddaas ay ku soo socotay iyadoo caajis haddana cigaal baa prime minister noqday nafs baad moodaysay inuu halkaa ka dhacay aad mooday in wax isku dheelitiran ka yimid tiina militariga qabsaday oo la wareegay shaqada inqilaabka 9 sano markay soo socotay waa iska maaragtay waa qabyaalad iyo corruption iyo balaayo waa jirtay laakiin adigu dariiq bay ku socotay oo ah dimuqraadiyad baa jirtay marka bahash dimuqraadiyadaas meesha ka baxday garanaysaa dil iska dayn lahaa iska batalaqsatay waxa suurooday inay 10 sano kale 20 sano kale inay wuxuun hagaagi lahaayeen qoomkaanuna ragaalna hadee la yiri hadii wax qalad ah jiraan bal sax isku day hadii kalena bahasha sideeda ku wad midaan aad tiri 6 gobol iyo hal gobol bay ma ahayna waxay laba wadan la dhigi jira Soomaaliya waliga Soomaaliya waa naqay ereygan Soomaaliya wala isku haystaa galaalow 1960kii Somali Republic ayay isku noqdeen labadii qaybood ee ahayd British Somaliland iyo Italian Somaliland ama protectorate
waxaa doonta u bixiyo transportator taasna waxay stressship ha soo ma ahayn sababtu saasay ahaayeen ha Somali Republic baa dibadna loo bixiyay maxamed tiyaa barra dimuqraadigu muu ku daray naga daaka ii kaada Soomaaliya tan goorma ku warisad maqashay ka timi Soomaaliya Talyaanigii baa baxshay waay Soomaali weyn wax la yiraahdo Talyaaniga markii hore laga maqlay waay Soomaalidii halkan koonfurta ahayd markii hore intaan Talyaanigu qabsan waxay ahayd maxamiyad yar yaraho oo midoomada ka madax banaan tahay mujirtiya waxay ahayd mujirtiya la dhihi jiray qola waxa jirta la yiraahdo Banaadirland waa waxa xamar ka soo bilowday ilaa iyo xuduudda ilaa iyo beledweyne iyo waa central regionka qolada waxay ahayd Jubaland ultra Jubaland la dhihi jiray oo Ingiriiska ay haystay Ingiriiska ayaa haystay marka Ingiriiskii baa wuxuu ka kacay Jubaland oo Talyaaniga ku wareegsay 25 ninkii Talyaaniga 1925 ayaa lagu wareejiyay Soomaaliya Talyaanigii kii fascistada ahaa kuwii maxamiyadihii xumaay oo dhan uu haraati kala daalay oo ugu dhibadnayd dhinaca jirtiya wixii oo dhan buu isku daray Jubaland waa ku daray Soomaali weyn wax la yiraahdo ninkaas baxshay halkaas ay Soomaaliya ka timid marka ma Soomaaliya u bixiyay soo Soomaaliya u baxshay Soomaaliya u baxshay anaga Soomaaliya la dhihi jiray garanaysa ma ahan Soomaaliya ma dhalan shalay iyo daraadiyo iyo xurriyadda dabadeed ma dhalan xagga Soomaaliya la dhihi jiray hadee dastuurkii aad aqbasheen oo halkan la keenay aad aqbasheen Soomaaliya ku tiilay ما Somali Republic وقتها ما انت كل يسقال بقول يكون بيلحنكي كوي لحدكي Somali Republic جمهورية الصومالية جمهورية الصومالية ما هي مياه ما هي لما هي anyway horta Soomaaliya horta halkaas ay ka timid ma qaan meel lagu kala waxaystay taas ma garanayo كل يسقال بقول يا أفريل لحدكي لبيه لحدكي بعد قال الله خير أفريل لحدكي تقال بعد عاد حد كترتي تقال كادو بلاد كشيكة تقال كي حواشي يا سومالي halkaas horta Itoobiyaanku waxay goosteen inay wixii la dhihi jiray Somali Protectorate inay qabsadaan oo waxay diidanayeen dhinac waxay rabeen bad waxyaalahaas dhinaca kalena waxay diidanayeen Soomaali baa isku biirtay fikradaas oratay ayay rabeen inay dhiciseeyaan marka waxa la yiri aan kala goono labadooda midna aan qabsano marka arrinta saas markay ahayd fiiri Ingiriiska soo sheegay noo soo sheegay wuxuu sheegay intaan xataa xiriirka loo goyn 1963 halka nin Dickinson la dhihi jiray joogo consul general ah Dickinson aniga Dickinson baa ii sheegay oo sarkaalkii Ingiriiska uu sameeyay consul general oo safaradu ka tirsanaa ninkaas waxaan isku baranay 63 markay ahayd ayaa koox dhan oo saraakiil ah inagoo ahay cadana loo diray seminar yaro 3 bilooda oo Ingiriisku waxaana lagu geeyay regiment uu xukumo nin scouts regiment to ay si ka ahaa jiray yani taliyahan ayaa naloo geeyay oo Soomaalida cabsanba markaas haddana regimentkeena loo geeyay regimentalkaas ciidankaas oo aan aragnay oo naloo geeyay ninkaas xukumay waxaraha kuma aamin waxaraha asaguna wuxuu Soomaalida waxaraha bal eeg أول واحد اللي يجي بيشيل الطليانيك عركوك الطليانيك أو حارنا حرد السعودي كذي ولا لا هو مسكوت كون أنا لو جاي مثلا ولا الحماة ولا بتهلقه كذي لا دقلة
xidiglayaal iyo laba xidiglayaal iyo waxaasaa ku jiray